السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeenimo wanaagsan akhyaartana daawanaysa meel kasta ka joogtaan daafaha caalamka. Wararka caawan idin hayno waxa ugu dooroon wararka Mareykanka ka imanaya iyo Yurub iyo Afrika iyo wararka Soomaalida. YouTube-keena badiya bari channel. Subscribe and share. Comment please. Wararka caawan idin hayno waxa ugu dooroon Mareykanka. Haddaan ku horeeyo Mareykanka. Wararkan waxay ka daba tagayaan wararkeennii xalay. wararka Mareykanka waxa caawa ku dhuftay xalay ku dhuftay duufaano baraf iyo qabow aad u daran taasoo saameyn in ka badan 200 oo qof magaalooyin badan ayaa la xidhay iskuulo waa la joojiyay duulimaadyo badanna waa la kansalay dawladda ayaa ku baaqday in dadku guryahooda ku noqdaan si ay uga badbaadaan shilalka iyo qabowga halista ah halka hay'adaha gurmadkuna ay heegan buuxa galeen sidoo kale Mareykanka ayaa sidoo kale xoojiyay joogitaankiisa militariga Israa'iil ee bariga dhexe iyadoo xiisadda cirka isku sii shareerayso gaar ahaan cabsi laga qabo isku dhac toos ah oo la galo Iran sidoo kale wararka ka imanaya bariga dhexe waxay sheegayaan in diyaaradihii qaaradda Yurub ka soo duulayay ay hakad galeen balwa kan la yiraahdo saaxiibkii ma yara falqaynay sheekadana rabaa hadda soo dhacday inaan ka dabageeyo warnimo yahow diyaaradii bixi lahayd Air France cabsi ay ka qabto in Iran gantaaladeeda Israa'iil lagu duqeeyo rakaabkii iyo dadkii shacabka ahay iyo flightskii way joojisay wala cabsanayaa meeshan ee diyaaradii kale KLM diyaaradaas Netherlands laga leeyahay jeclahay ayadana flightskii ugu tagi lahayd Israa'iil iyo wadamada Carabka qeybo kamid ah waa la joojiyay حتى بحرين تجي لهيت كويت تجي لها ديارتها إير فرنسا أما يكلم دمان تود بوالا جوجيي ويك إندي فلايتس كفيري سسبني على الوسمية يلا جا عبسنا يا متقنا مريكان كإنه صوّرره إيران هدي إيران لصوّرنا سيدو كله إني أديك ستو جنتالة ده ردة الدير كله ولي بلدوقيايو إيربوردا إيميل والبابا حتى ودمادي عربت ولا جوجي كويت قيب أي كتاه بحرين ودمادي عربت هاي سفرات أي كتوجي لها دياراس ولا هكية وحير كوراس آخرنا وحيابها السويدين وحكلوا كم ذا هدي بيسسك أي كل يهين ودمادي عربتها مريكان كأودو قيو على هدو مريكان كأكو قاضي وير إيران سيدو كلا إيران الجنت هذا داير له كويت على وير دونا سعود بيس والبا أما صليق والبا ملتري أو كل هالكاس سيدو كلا ولا دونا على كل حال sidoo kale adduunka waxa haysta qabowgii iyo barafkii ayaa aad ugu xoogan oo magaalada imkaan joognay Canada Toronto faraha laga qaaday qabow maanta oo kale waxaanu galeynaa wararka Yurub waxay waajahaysaa qabow daran iyo baraf xoogan taasoo carqalad ku keentay gaadiidka iyo duulimaadyada dhanka kale dagaalka Ukraine weli wuu socdaa iyadoo Ruushka iyo Ukraine ay isweydaarsanayaan weeraro culus midowga Yurub iyo NATO waxay sii xoojinayaan taageerada ay siiyeen Ukraine sidoo kale waxaynu gudagaleynaa wararka ka imanaya Afrika qaaradda Afrika xaaladeedu waa mid adag Suudaan dagaal sukeeye ayaa sii xumaanaya malaayiin qofna way barakaceen cunto yari iyo biyo la'aan ayaa taagan sidoo kale Itoobiya abaar ba'an ayaa saameysay malaayiin qof gaar ahaan carruurta iyo waayeelka sidoo kale galbeedka Afrika qalalaasa siyaasadeed iyo isbeddello degdeg ah ayaa ka taagan dalal dhowr ah taasoo dhalisay walaac caalami ah sidoo kale wararka ka imaanaya Soomaaliya waxa ka socda hawlgallo ballaaran oo ka dhana al-shabaab gaar ahaan gobollada dhexe dawladda iyo ciidanka deegaanka ayaa sheegay in guulo la taaban karo inkastoo khataraha amni weli jiraan abaarta iyo roob la'aan ayaa sidoo kale saameyn xooggan ku yeelanaysa nolosha dadka kuwaas oo u baahan gargaar degdeg ah dood ku saabsan doorashooyinka iyo waqtigooda ayaa weli taagan iyaduna raashinkii loo diri lahaa ee halkaa la geyn lahaana dowladda Soomaaliya halkaa ayaa boobtay sida la sheegay dad ka mid ah boobay raashinkii sidoo kale waxaanu gudagalaynaa wararka ka imanaya Somaliland madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa si fiican ugu iibgeynaya dalkiisa fagaarayaasha caalamka isagoo ka qayb galay shirkii Davos ee dalka Switzerland madaxweynaha wuxuu kulamo gaar ah la yeeshay madaxda iyo maalqabeeno
isagoo diiradda saaray fursadaha maalgashi gaar ahaan dekedda berbera. markii la weydiiyey su'aalo ah doonista Itoobiya ee ah inay bad hesho, wuxuu yidhi madaxweynuhu, waxaanu aqoonsanahay in Itoobiya ay xaq u leedahay inay hesho marin badeed, waxaana wadnaa horumar ka dhan ah kaabayaasha dhaqaale si wadajir ah si labada dhinacba uga faa'iidaystaan. madaxweynaha oo halkaa hadalkiisa si wato su'aalo badan laga weydiiyey ayaa halkaa kaga wada jawaabay su'aalihii la weydiiyey oo si hufan in maalqabeennadu ay maalgashan karaan Somaliland, gaar ahaan dekedda, macdanta, mineralka, shidaalka, arrimo noocaas oo ka hadlo fara badan. sidoo kale gabadh reer Djibouti oo aad u caqli badan baa halkan ka hadlaysa, arrimahay sheegaysana waa qaar aad xiiso u leh. bal la daawada waxay ka hadlayso siduu Ismaaciil isugu daraya ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda. bal daawada. imika waxaan aad ugu sii qoslayaa hawshan laynoo diray reer Djibouti haddaan nahay. hawl waxaa laynoo diray oo laynoo dhiibo foostooyin waxaa laynagu soo riixay aanad malaynayn. wax qaar wax ka run yihiin, qaar la buunbuuniyey, qaar waxba kale maad aragtay ka jirin, laakiin layna yidhi iska qabta xambaara. laakiin waxaasoo dhan loodageeray iyo maskax badanaa ma waxaad aragtay population siday u dhannayd ka 99% ku quraacata Somaliland, ku seexata Somaliland, ku soo toosta Somaliland. halkay mareen, maxay sameeyeen, maxaa bari u qorshaysan, maanta yuhuudi may la hadleen, hebleen cira halkuu maray, muu u telefooneeyey, maxaa halkan laga yidhi, waryahoogii muxuu soo qoray, islaantii heesiisay maxay ku heestay. nacam waxaan ku leeyahay hawshu inoo diray subaxasay u toosaan. iminkaan waan kaga dul shaqo tagaa. 4 waxaan isku hayaa activity assistant d'éducation baa commerce-gaygii baan wataa, interprète baan waxaa ii dheerna association-gayga dadka ku caawiyo iyo gurigayga iyo shaqeednimadayda. wallahi waxaan ku leeyahay goormay waxaan oo dhan kala haleelaan dadkani yowdi baa ka dhammaatay. waxa igaga daran foosta kastoo la soo riixo على letter على مسكح beerkayna gaga dhacaysa. markaasaynu dawaqaynaa oo isku wada dhaxyaacayna oo live soo furanayna oo inu daalnay oo inu xiiqnay. weligay ma arag energy-ga inta leeg ee Somaliland legal ilaa markii Muuse Biixi joogay ee badan kareynaya waran jiray mad xasuusantiin tii dhacaysay imisa bilood baynu sheekooyinka ka seexan weyn. waxaan ilaahdaa reer Djibouti haddaynu nahaynaku waddan ka gaaraynu nahay Soomaaliya ilaa Somaliland Soomaaliya is haystaane sheekadan xagaynu kaga jirnaa inagu. sheekadan ilaa waaba lay cadeeyda adaan bay ma soo baxay la yidhoon oo Somaliland hadii la aqoonsado ma ogid madam boorka berbera ayaa cirka samawaadka tagayo keena baabaaya. war arsaaqada ilaahay laba dukaanoo iska affuran ayuu ilaahay labadaba arsaaqa. horana waan idin aan waxba iga dhaadhacsan ba taageero fiican iyo shaqo fiican aday ka dhaxayso in meesho dhan ummaduna ka faa'iideyso horumarkuna cirka noqonayo. laakiin hawshan laynii diray waa ilmihii yaraa, waa dhexdhexaadkii, waa islaantii, waa odayga iyowdii adduunka lagu soo toosaya lagu seexanay. imiga ay iga dar qola calankii xitaa isku soo marmara wadaninimo muuji. allah EOG kaartadiisu war odayan yar wallahi adeero friid baad waad iska edbisay dadkan. daawadaya war waxaanu caalamkeedii ka hayna waan naga intaa. tan iyo intan dib u kulmayno habeenimo wanaagsan. subscribe iyo share iyo like. ibrahim kuma inaan dhufan baalkee ku dhufto la dhaca. bye.